madax bannaan ka socda asbuucyo ka hor shirki ka dhacayay dalka isku taga imaaraadka carabtana lagu casuumay. dowladda federaalku arrintaas way la soo daahday. wasiirka arrimaha dibadda ayaana waraysi laga qaaday oo VOA-du ay ka qaaday lagu weydiiyey arrintaas sida ay u aragto dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba fiqi muxuu kaga jawaabay? waa dul istaagi doonaa. wadamo kaleeto oo Kenya ay ka mid tahay oo fiqi uu duray isla markaana uu ku tilmaamay iyagana inay faragelin wadaana iyadana waa soo qaadan doonaa. dhinaca kaleeto dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa walaa xoogan ka muujisay hakinta dalka Mareykanku uu hakiyay taageeradii dhaqaale ee uu ku taageeri jiray dhanka ciidamada iyo sidoo kaleeto dowlad dhiska Soomaaliyaba. dhaqaalahaas fiqi wuxuu ku tilmaamay in caqabad xoogan ay ku noqon doonto hore u socodka dowladnimada iyo sidoo kaleeto hanaanka maaliyadeed ee markaasi Soomaaliya. waxa uu dhinaca kaleeto sheegay in dalka Mareykanka uu u joogo sidii uu Mareykanka ugala hadli lahaa dhaqaalahaasi sidan hakad loo gelaynin, iyagoo dhanka kalena uu sheegay in dowladdu ay samaysay qorshayaal kaleeto. haddaba maxay tahay qorshayaasha kale uu sameeyey? Mareykankase suurtagal ma tahay oo Soomaaliya ma sii wadi doonaa taageeradii dhaqaale ee uu ku bixin jiray? fiqi ma laga aqbali doonaa codsiga uu dalka Mareykanka u tagay inuu madaxweynaha dalka Mareykanka dowladda Mareykanka uu kala hadlo? iyadana mid iyo labo ayaan ka dul istaagi doonaa. dhinaca kaleeto calaamadaasi fiican u fiiri. Afrika weeye, magaalada Addis Ababa ayaa lagu soo bandhigay, waxaana ka dhacaya shirka dhalinyarada Afrika ayaa ka dhacaya. dabcan wadamo kalena inay ku jiraan waa suurtagal. shir weyn baa halkaasi ka dhacaya oo dhalinyarada caalamka ayaa ka dhacaya. waxaa lagu casuumay oo qeybka oo calankoodii xataa wata Somaliland. maamulka Somaliland ayaad moodaa maalmihii lasoo dhaafay isbuucyadii lasoo dhaafay inuu gadayo siyaasad ahaantooda gooni-goosadnimo, isla markaana aada moodidba in xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisii boodka lagula tuntay oo ay ka faa'iidaysteen foodqalaalada iyo khilaafyada iyo sidoo kaleeto hubanti la-aanta siyaasadeed iyo dowladdan shaqo xumada xukuumadda xasan sheekh maxamuud inay ka faa'iidaysteen aada moodaa. waan dul istaagi doonaa. iyadana calanka Somaliland baa halkaasi ku dhex jira, qayb bayna ka yihiin baa layidhi dalalka kasoo qaybgelaya, dhalinyaradooda ay kasoo qaybgelayso. mid iyo labo ayaan ka dul istaagi doonaa. iyadana soo dhawaada, muuqaalka like saara, aragtidiina nagula wadaaga qaybta commentiga. aynu ku bilowne asbuucyo ka hor ayay ahayd markii dalka isku taga imaaraadka carabtu uu Soomaaliya laga ilaaliyo ahaa. waad ogsoonaydeen bilihii ugu horreeyay waa la isku dhacay. xasan bay marka soo saarteen, dhaqaale ku bixiyeen, malaayiin ku bixiyeen, soo dhisteen oo ay keeneen. xasan marka sidii ay usoo dhisteen oo lama aysan dhaqmine waxay ula dhaqmayaan inay maaragtay kolba dhinac ka Axmed Madoobe waad ogeydeen waa loo yeeray, walow sida ciro oo kale aan loo maamuusin, laakiin Axmed Madoobe wakaa dhaqaala lagu bixinaya, xagga laga soo gelaya, xagga laga soo gelaya. waa la ceebeeyey duqi xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisii. ceeb ayaa afka laga geliyay. arrinta waxaa la leeyahay dadka siyaasadda Soomaaliya u dhulduleela waxay kasoo bilaabatay baa la leeyahay khilaafka imaaraadka iyo Soomaaliya. saraakiishii dalka isku taga imaaraadka carabta ee lagu laayay xiradii General Jordan ee tababaraysay ciidamada Soomaaliya ee tababarinta u joogtay. saraakiishaas baa waxaa la leeyahay baaritaan la sameeyey ayaa la ogaaday shakhsiyaad xasan sheekh maxamuud aad ugu dhow inay dilalka ka dambeeyeen. sidaas awgeed baa markaa imaaraadku uu ka imaan baxay xasan sheekh maxamuud. wuxuu samaynayaa marka maamul goboleedyadii ayuu u yeedhanayaa. waa arrin faragelina oo xadgudub ku ah madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliya. si walbaba oo dowladdu ay ama xasan ay uga imaan baxaan arrintan waxa weeye waa arrin xadguduba. ha ka imaan baxaan xataa si walba ay uga imaan baxaanba waa xadgudub. faragelin wadan walba oo inagu samaynaya dee waa xadgudub bu inaga inagu yahay, madax banaanideenu xadgudub ku yahay. marka xasan marka way ceebeeyeen. cabdiraxmaan cirra loo yeedhay, roog casaana loo dhigay, shirki baa lagu casuumay. isaga nin ooma yeedhin, xasan ooma yeedhin. shirkiba waxa weye khudbada ka jeediyey. madaxdii carabta oo dhan baa waxa weye meesha ku xataa iska badaa intaa bisa kuma ekayne wasiirkii maaliyadda iyo wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga ee dowladda federaalka ka socday lagu casuumay shirka ayaa haddana lagu soo qoray inay ka socdaan Republic of Somaliland. bal ayaan darada dhacday. dowladdii federaalka ay ka hadli lahayd iyo madaxweynihii ka hadli lahaa diyaaradu buu sii saaran yahay. Azerbaijan ka tag, Rwanda ka tag, Uganda ka tag, Tanzania ka tag,
balaay waxa Ethiopia arsaba ka tag Libya hadda ugu dambeysay uu diyaaradu sii saarayeen bal ilaahay baan ugu dhaariyay Azerbaijan iyo Libya iyo maxaa yaala dalkiiba waa la dayacay waxa weeye uu hilmaamay duqub waa diyaarada sii saarayay ee jaag yar oo la soo qaadanayo waa diyaarada sii saarayay xoogaa martigeliye laga soo qaadanayo wadanka madaxweynihii shaqadiisa intaas uu dayacay shaqadiisii oo dhan buu dayacay marka waa laga adeeganayaa duqi Cabdiraxmaan Cirre gaabnaayada ogeeyeen nicda intan ahaa jabka ayaa meel walba dhex taagan oo shaqadii qaranka Soomaaliyeed bahayaba isagii bahayo la yaabay banik waa ninka tago labada gobol ka tagay laba gobol boys laba gobol jooga weyn ninka isaga madaxweynihii marka iyo shaqadii xukuumaddiisaba shaqadii bay dayaceen dalkii isku tagay Imaaraadka Carabta marka arinta ummadda Soomaaliyeed waa dawladdu may ka hadashaa lahaa way ka hadleen wasiir fiqi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ka hadlay waxa uu sheegay waraysi uu siiyay VOA-da uu ku sheegay laanteeda afka Soomaaliga uu ku sheegay in arinta faragelinta ay aad uga xun yihiin wixii ka dhacay dalka isku tagay Imaaraadka Carabtana ay ka warhayaan xiriirka Imaaraadka Soomaaliyana uu fiican yahay wax maana weyn aysan jirin laakiin faragelintaasi ay wadaan qorshayaal dawladda federaalku ay ku hakinayso ama ku xakameynayso safarada madaxda maamul goboleedyada iyadoo dhinaca kalena uu xusay in madaxda maamul goboleedyadu ay caadiba u ahayd inay tagaan buu yiri dalka isku tagay Imaaraadka Carabta wuxuu tusaale u soo qaatay iyo waliba dalal kaleba isagoo tusaale u soo qaatay Axmed Madoobe oo isagana bishii la soo dhaafay tagay dalka Kenya oo uu ku tilmaamay iyada naftirkeeda inay faragelinada ay ka mid tahay ma uusan xusin in dalka isku tagay Imaaraadka Carabta arintaas xadgudub ay ku tahay madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed laakiin wuxuu yiri faragelin bay wadaan buu yiri faragelintaana dawladda federaalku qorshayaal bay wadaa buu yiri looga hortagayo oo la doonayo in hakad lagu galiyo safarada madaxda maamul goboleedyadu ay ku tagayaan wadamada iyadoo dawladda federaalku aysan ogeyn intaas uu ku soo koobay waxaa dhinaca kale to walaa xoogan uu ka muujiyay xagga dhaqaalaha ayada naftirkeeda su'aal laga weydiiyay dhaqaalihii dalka Mareykanku ku bixinayay Soomaaliya ayaa la sheegay in Soomaaliya ka mid tahay wadamada hakadka laga gelinayay Mareykanku uu shariica ka laabanayo ee dhaqaalihiisa uu ka joojinayo dalka marka Mareykanku dhaqaalahaasi waa laba nooc ay iskugu jiraan dhanka kabka maaliyadeed ee Soomaaliya uu siinayay iyo dhanka taageerada ciidamada labadaba way iskugu jiraan dhaqaalaha marka faraha badan oo iyadoo waliba qaar kalena horumarino ay jireen oo hay'adii hadda shaqada laga joojiyay Mareykanka dhanba laga albaabada la iskugu dhuftay xaruntoodii USAID ay dhaqaale fara badan dawladda federaalku ay sanadkan ka sugaysay oo waliba gaaraya 120 iyo waxa weeye 9 milyan oo ay ugu talagaleen horumarino dhanka waxbarashada iyo caafimaadkaba lacagahaas oo dhan marka hakadku Mareykanku uu gelinayaa fiqi wuxuu sheegay inuu Mareykanka ku sugan yahay arintu u tagayna ay tahay in Mareykanka uu rabo inuu kala hadlo sidii dhaqaalaha loo sii wadi lahaa oo Mareykanku noogu sii wadi lahaa iyadoo dhanka kalena uu sheegay sanadkii la soo dhaafay wuxuu yiri waa la dejiyay miisaaniyadii kumaana xisaabtamaynin buu yiri Mareykanku inuu dhaqaalaha naga joojinayo kumaana xisaabtamaynin ayadoo aan ku xisaabtamaynin ba Mareykanka dhaqaalihi uu joojin ba la yiri marka wuxuu yiri culays badan bay nagu keenaysaa oo dhaqaalaha hadduu Mareykanku naga joojiyo culays badan bay nagu keenaysaa marka waxaan rabnaa Mareykanka inaan kala hadalno oo bal bilo xoogaa muddo u nasiyo oo noo sii wada dhaqaalahan si annagana markaan ugu tashano oo aan iskugu tashano oo aan meelo kale qorshayaal kale aan wadno aan u hirgelino si kastaba filla Soomaaliya walaa xoogan bay ka muujisay xoogaagii Mareykanka ee meelaha lagu kala qaybsanayay intiba waxa weeye aad loo calcalaya oo leeyahay xagee wax u doona seeyela ninna markuu kursiga fadhiyay wadan hebel ha kaalay soco qaramada midoobe aw ha ayri iyad ha MAU aw ha carabta eri aw kuwi carabta carabiga aw waxa weeye jaamacad carabta ergigooda aw ha kaalay ma idin darasaysa eri ma u fiirinayninba wax dhaqaalaha iyo walwalba ma haynin wax walwalo hayaba ma jiro waa way dhaqaalaha meel ka keenay waxa marka ay ku kala duwan yihiin Farmaajo iyo Xasan farmaajo waxooda way boobeen xataa sanadkan lagu jiro miisaaniyada la jabi la sameeyay ee la dejiyo wixii dhaqaalahan meel ba mar hore lagu kala shubtay waxa lama hayo wax la joogo la hayo ma jiro farmaajana wixiisu waxay ahaayeen wax yaala bay ahaayeen oo meel yaala bay ahaayeen lama taataabanay musuq ma jirin shaqaaluhu mishaar ku filan bay qaadanayeen xoogaag waxa weeye cid walba wixii loo garto gunaana waa jirtay laakiin waxa la boobay ee bangiyada lagu kala shubanayo ee wixii soo galaba Xasan inta bana soo gashay maxaan sameeynaa hebel inta u tuur hebel inta u tuur inta kana labadeen inoo kala jar ana inta halka ay gali baxa ma jirin
waxa ma jirin dowlad bay ahayd iyo kaliyo mustaqbal ummadda Soomaaliyeed baa la sameeyay farmaajo u sameeyay marka kooxdan inay calcasho taas keenaysa dhinaca kale to calankii aad arkayseen ee aad daawateen arrin la yaab la ka socota magaalada Addis Ababa calankii Somaliland baa kamid ah leeyahay calaamada wadamada calaamadooda ee ka soo qayb galaya shirka dhalinyarada adduunka ee halkaas ka dhacaya waxa ayaan daraa oo la yaabay Ethiopia Saayidii Xasan Shalay ay heshiiska ay shirka ku wada jireen oo ninka abiyaha islaantiisi uu dhunkanayay ma xasan uu dhunkanayay waxa gareynay warma arkayseen Saayida saas ku dhaweeyeen ninka abiyaha islaantiisi uu ku marti qaaday tuqa xasan ama maxay tahay waxa weeye faragelintan kale iyo waxaan sii socda mise xasan madaxweyne looma aqoonsano anu arbalay xasan inaan madaxweyne loo aqoonsanayn oo yahay inuu iska soo shaqatay Ethiopia xogaa shaqadkooda ay siinayeen waayab adduun weli way sii socotaa faragelinta wadamada waxa weeye sida tooska u faragelinay madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan arintaasi anigu aan ku micnayn lahaa siyaasad xumada Xasan Sheekh Maxamuud baa ku micnaynaya wax kale oo aan ku micnayo waan garan waay dhinacyo badan baan ka eegay waxaan isirin waa siyaasad xumo madaxweynaha qaranka wuxuu noqday nin uu leef raadis hada Liibiya uu safar Liibiya maxaa looga safray waqti loogu bixin iyagii baa waxa weeye qoys u kala fadhiya iyagii baa group u kala fadhiya dawladba kama jirte maxaa laga doonayaa xoogaa baa shidaalka uga soo gaay marka xoogaa uga soo gaay Liibiya waayaan shidaal bay iibiyeen fara badan baa leeyay oo carabaha markuu sare u kac uu sameeyay baa shidaal badan baa Liibiya laga iibiyay marka shidaalkii xoogaa uga soo gaay baa loo yeedho leeyay bal inta soo doono xoogaaga aan ku siinay baa lagu yiri waan malay aan wax kale oo hadda aan ku tilmaamo garan mahay si kastaba waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe